halkan waa janalka Rafiiq Al-Macruuf. Subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaal walba oo aan soo gelino. Taaba calaamadda gambaleelka si aad u ogaatid. Jumcayaasha kamida ayaa waxaan ka khudbadaynay mid kamid ah masaajidada. Waan dhameeyay khudbadii waana soo degtay kadib waxaan guda galay inaan salaada dadka tujiyo. Waxaan dhameynay rakcadii koobaad. Waxaan galnay tii labaad marka aan marinayo aayadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee suurat al-Faatiha. إياك نعبد وإياك نستعين. marka intaas marinayo waxa dhacay mid kamid ah jamaacada oo salaada ku jiray. Salaadii ayaan dhameeyay waan salaamo naqsaday. Masaajidka aad ayuu u weynaa bartamaha masaajidkana waxay ahayd meesha uu ku dhacay. Mikrofoonka ayaan qaatay kadibna waxaan ku yiri war u baneeya zaxmadii idinka ciriirinaya si hawo u helo. way la garteen jamaacada wayna u baneeyeen. mid kamid ah jamaacada ayaa qof takhaatiirta kamid ah wacay waa uu imaaday waxa uu xaqiijiyay takhtarka in ninkan markii uu dhacayba ay ugu dambeysay nolosha. توفاه الله منذ أن سقط في المسجد. waxay ahayd maalin jimcaha uu soo qubaystay uuna soo weysaystay waxa uu hortaagnaa Ilaah subxaanahu wa ta'aala wuxuuna ku jiray salaada. waxaan ka helnay telefoon jeebkiisa waxaan wacnay mid kamid ah numberska ku jiro waxaan naga qabtay walaalkii oo Khalid la dhahay qofka dhintay waxa uu ahaa Maxamed. waan wacnay waan noo imaaday kadib meydkii ayaa la qaaday. Khalid ayaa waxaan ku yiraahday ninkan xaguu ka imaaday markaasuu wuxuu ii tilmaamay meel fog waxaana sheekhu halkan ugu tukanay si uu khudbadaadu dhageysto. markii uu intaa ii sheegay waxaan ballan qaaday in qof aan ahayn meydkiisa aysan dhaqin. xaqiiq aniga qaar kamid ah jamaacada ayaa meydkiisa dhaqnay. markii aan ku soo tukanay oo aan soo dugnay kadib Khalid waxaan ku yiri Khalid ninkan bal xaalkiisa iga sheekay sidoo ahaa. markaasuu Khalid waxa uu yiri xaqiiq sheekhow annaga waxaan nahay dad badan oo walaalo ah waxaan nool hooyadeena. ninkan Maxamed ah hooyo aad ay ugu kalsooni qabtay isagana kalsooni ayuu ku qabay. qof aan isaga ahayn uma idirsan jirin wax walba u baahan tahay. isagana waxa uu ahaa qof hooyo zaid uga taxadaro amarkeedana fuliyo. waxaana u maleynayaa arrinkaas dartiis in uu ku helay wanaagan Ilaah uu siiyay. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا